سلام كتب وحنو ما هاد علينا يا كودي كدور شوينك قرنك هذا البال يريح بسم الله وحنو ما هاد علينا يا كودي كدور شوينك قرنك dadaalka dheer ay sameeyeen runtii ayna tuseen jiilka kulay anigu aan weynahay oo aan arkin doorasho wadankooda ka dhacaysa ay sheekada ku tahay practic noo tusay ayaan u mahad celinayaa waana sugayaa insha Allah 2 sano kadib inaan aragno haddana ayagoo dhammaystiray oo natiijo xisbiga ku dhawaaqaya xisbi hebel intaas oo xildhibaan oo helay xisbi hebel intaas oo xildhibaan oo helay halkii haddii doorashada Soomaaliya dhamaatay legislative beel hebel intaas ay heshay laga dhihi jiray ay hoob inaan arko guddiga doorashooyinka qaranka oo natiijada ku dhawaaqaya doorashada 2021 insha Allah waxaan sidoo kale ana gudoomiyaha la qaybsanayaa u mahad celinta Sandare dabcan guddiga waa inay mahad celiyaan أنا أقول ما هذا علينا على كل حال سندرة وحوا عن رنتي أنا أقول هذا الشقة عن مدحكها لها نكانوا ديب لها لكن مركب وحين لا يفوض عن ربع نجعلان لهين وأنا هو رجال كان في الدنيا قبلها إن سندرة ما دور جرك الحناقة وأنا هو لكنse waa wax wanaagsan in shaqada yani lagu kala aragti duunaado la isku canaanto wax kale aan la isku maahan wax la isku istaa warqada inta saa ka dhiman warqada inta macna ma laha Sandaro biida weyn yani biida yarda Soomaaliya aan soo dhig niman ka tanaasulin buu ahaa annagu hadda inta fadhiday way soo dhaafna Sandaro horta laakiinse inta soo socota raalli aad waa kaftama mid baa boqor baa waxa la yiri beer baa laga xaday markaas ilaaladii boqorka waxay qabatay tuugadii beerta xaday iriday fadhiisayaan waa u tageen boqor beertaada iyo tuuga xaday waana qabanay bay yiraahdeen bis kursiga dhigo yiri ana kala xukumaye marka kursiga waa loo dhigo kii ugu horeeyay la soo deeyay xukunka wuxuu ka dhigay mid kasta beerta wuxuu ka soo xaday in dabada laga galiyo ملين ببل وتاوري مرك وقصلي مرك مع القصل ولا دقن باتاي صاحبك يبقى قرصه وتوك مرك انت هذا سنداره صدافني عويت حق السبعات لكن انت صوصعت الله وفوضي sidoo kale masuulka cusub runtii aan magaciisa uga cusbeen kulayba hadda la qaatay si horumar loo gaaro oo shaqadan si dhaba ma aha gudoomiye maray waxay ka hadashay fikir anigu aan qabay oo ahaa deewaana wax soo kordhisaan xaqiiqatan anigu dhaliil aan u jeedinayo xisbiyada inkastoo galabta ku soo biiray aniga laftirkeyga la dhaliil doono waayo konton xisbi waa wadda ku leeyahay hal xisbi ma dhageysano oo sheegay ra'yigiisa idaacadaha kama aragno waa la yaabaa marka 40 xisbiyo mucaarada wadan leh ra'yi warayl aakhirna aan lahayn inkastoo dawladda laga sheego in aanay ogoleyn waxa ay lagu sheego laakiin haddana inta soo dhibaato Sandaro la soo dhaafay haddana la iska aamuso saaxiibaday waxaan leeyahay miyaa ajir laga rabay waxay la tahay in ajir laga rabay in lagu shaqeeyo la rabay waqtigu aad u kooban yahay waxaan u mahad celinayaa sidoo kale saaxiibaday xisbiyada cusub iyo kuwii horeeyaba oo saaxadda xisbiyada isku soo biirnay dabcan waxay la tahay anigu iska bilaabayo xisbigu dahab la soo iibsaday la xariisanayo ma waa in challenge lagu gala koraan u dhahay hadda aan dawladda iyo doorashooyinka iyo aan wax laga dhahaynin waa in la isaga biiraad xisbi waa noo dhisan yahay hadda xukunka xisbi baa haya waa inaan kaa ku wada biirno inaan wax ra'yi keenin waa inaan u sabcno ayaga oo dhahno hay haddii aanay ahaynna waxaad arkaysaa in daraad laftirkeeda ka soo baxay golihii wasiirada ay ka muuqatay in 5 sano kale ama 10 sano kale xataa lagu dari karo
raallahayga ahaado guddigu waan ogahay inaan raalli ka ahayn waan arkay waan akhriyay statementigooda laakiin waa wax kursiga ninka yimaada jecel yahay inuu iska sii joogo haddii aan la helin xisbiye shaqeeya oo shuruudaha inta dhiman soo buuxiya oo gobolladoo dhan taga oo orientation aan dadka u samayn haddaan la helin I'm tell you nabadii nolol way sii fadhin doontaa marka gaab dowladnimo ma la aqbalayo inay iska baxaan ayagu alternative-na uusan jirin ma la aqbalayo haddii aan la imaan weyno fikrad lagula tartamo aan la imaan weyno fikrad iyaga lagu saxo waxay ku khaldan yihiin xalaal iyo xaaraan midday doonto ahaato saaxiibaday halkay noo fadhi doonaan ayagoo daliisho doona dee ma iska tagnaa yaan ku wareejinaa xukunka marka raalliha laga aado anigu kulleyba waxaan ballan qaadayaa xisbiga BDU inuu shaqayn doono inuu muxuu ahayto uusan taageerayaasha xukunka qolada markaas qasab ma aha waxaan ka hadlayaa berri iyo 2 sano iyo 3 sano BDU waxay jiri doontaa 100 sano insha Allah iyo kasii badan jirta la rabaa okay sorry laakiin se waxaan ku hadlayaa dadkaas soo dhibi jirta magacood marka xisbi waxa loo dhisaa 100 sano inuu jiro ma aha doorashada in lagu gaaro sida kuwa Kenya arki jiro kale marka aan taa ka fikirno aan la nimaando fikir waa mahadsantiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.